xanuun ka weyn ma jiro ninkaagii aad dunida u jecleeday caruurtaad u dhashay ee weliba lacagtii adiga aad soo shaqaysay aa siin jirtay haddii isla lacagtii adiga aad siisay uu naag labaad ku guursado. ninkan magaciisa waxaa lagu magacaabaa basali khayr. gabadhan oynaysana waa lamaal asil, waa xaaskii labada caruur u dhashay ninkii maxaan ku irahdaa naagta labaad la guursaday ama ninkeedii. waa Suuriyaan Ameerika ku nool oo caan ka ah baraha bulshada. lacagteeda ayuuna naag labaad ku guursaday. ciil dartiis bay la ooynaysaa oo waxay leedahay cadowga ayaad ii jabisay waana laygu qoslayaa maadaama ayadu ay ahayd naag caan oo ganacsato ah misna modelkii waxyaabaha sameysa shirkad company oo dhar soo saartana ka shaqeysa. nin abaal male markii lagu leeyahay waa iska noocan bal naagtaadii ee caruurta ku dhashay haddana lacagtaadii ku siinaysa ku dhahaysa wax walbana ku siinaya ku dabaraya. ilaah baa kugu dhaariyay naag labaad ma la guursan lahayd ama niyadaada ma kusoo dhici lahayd? xageebaa laga helaa gabar ku beelaysa lacag ku siinaysa caruur kuu haysa waxa kuri ku dhibaynin? xageebaa laga helaa? waxa maqli jiray bini aadanku lama qancin karo. isagu markii maanta la weydiiyay wuxuu sheeganayaa eed fara badan. gabadhan sidan u ooynaysa ciil darteed la ooynaysa. gabadha ay maxaan ku madaxa qabanaysan waa gabadhii walaasheed ahayd. weliba gabadhan hadalada ay ku hadlaysan waxaa kamid ah anigaa kuu hambaliyeynayo, anigaa meel walba kusoo dhigayo, anigaa waxaa ku irahdaa Instagram, TikTok, Snapchat aalad waliba kuugu soo hambaliyeynayo. hambaliyo ciil bay la ooynaysa. aniga ayaa u hambaliyeynayo, hambaliyo waa ku faraxsanahay khiyaanada ay geysatay. way garaacaysa ma fahanti? yacni intaa waxay la gubanaysaa. bal nina adigu shalay hore waxa u maqli jiray qofaad adigu maxaan ku rahdaa kobtaada yani kobtiis aad tolaysid isagoo karfantaadu tolayo. ninkan dhankiisana aad badan buu qabaa. markaan idin leeyahay ninkan wuxuu leeyahay inaan guursado waxaa igu kalifay nolol xayaatul kalab ayaan ku noolaa, yacni nolol xun ayaan ku noolaa. caruurteyda iyo anigaba ma ahayn dad haysta يعني daneen gaara, farxad iyo qanacsanaan kuma haysan gurigeyga oo waxaa iga muhiimsanaa shaqada iyo asxaabteeda. waxaan door biday buu leeyahay gabar ii aragta inaan ninkeedii ahay, ina ixtiraamaysa nolosheeda kuna dhamaysanayo kuma dhamaysanayo leeyahay kumeysi iyo inaan ahayn ruux aan bajirin. maxaan ku rahay kula tahay ninkan guriga ninka shaqada iyo asxaabtaada yaa muhiimsan buu leeyahay. marka ina dhahayo ninka markii loo fiiriyana aad badan buu tabanayaa. sidan ayaa kamid wuxuu leeyahay daneen gaara ma haysan, qanacsanaan ma haysan. aniga caruurteydana dee gumeysi baaba ku noolayno anigana waxaan door biday buu leeyahay inaan gabar yani gumeysanayno oo aan macna nolosheyda yani ii arkaysin ninkeedii ahay. soo gumeysi kuma noolaanayu leeyahay. gumeysiga ku noosha maxay tahay hadii lagu yiraahday lacagtaada maxaan ku iraahdaa lacagteeda qaado waxbana ha shaqeyn dhibaatana ha gelin lacagteeda ku siinaya raaxayso kaliya naag iga ilaali. nimankan markaad tiraahdo naag hayla guursan bay waxayba u haystaan inaad gumeysanaysid. hadda markii naag guursan ku dhamiya xoriyad lagu siilaa ku dhaariyay. wallahi ani waxaan maxaan ku iraahdaa dareemay nin inuu nin yahay. yacni nin Soomaali waxa eedeynina farax Soomaali baasan war farax waa farax Soomaali Arab ha ahaado fahanteen. marka aad ugu xumay walaasheen qaybta dumarnimada ay xanuuntay sababtoo ah maanta ciilkii oo inta ay dareemayso waa la dareemayaa. aniga maanta iska daninaan wax siiyay lacag iyo hantideeda ugu deeqa kan aan ku shaqeynsiinay isaga biilkiisa keensada bana maanta khiyaanadaas ka ogolaanin. qofka hami baa qaadi kara inuu si cad u dhaho aniga ma tahay ha walaalay naaftas baa rabaa haya aad aniga fur. xanuun baa dareemaysa laakiin way ka xanuun badan tahay markaad maqasho ninkaagii baa naag qaba ama guurkii ninkaagii iyo naag kale social media ku aragto. inuu goona sidan isaga faraxsanaan jirtay. marka horta farxad waxa maqli jiray farxad waxa haystaa marka kaliita wallahi bila markuu farax ku yimaado farxad ma qaar dhamaystiran way jiraan oo dadku isku mid ma faraxyaashu qaar farxad dhamaystiran siinaya naagooda way jiraan. laakiin de badanka uma badna. badanka gabdhuhu ooyin bay ku dhamaystaan noloshooda. maalin way ooya maalinna way qoslaan fahanteen. inuu sidan waxa laga maxaan ku laga hadalhayaa
dunida weliba qeybta maxaan ku dhahay warbaahinta carabta ayay aada u qabsatay. anagana waa ka xunayd koley. dumar waa dumar, carab ha ahaato waxay doontaa ahaato, dumar waa dumar. waxaana leenahay insha allah ilaahay qalbigaa u qaboji, caruurteedana la koriy. naag lacag leh waa caruurta umada haysee, caruurteedana waa nimo waaweynoo dee maanta yacni way yareer yihiin, laakiin waxa waaye way kasoo baxeen xilligii la xambaarayay. hadda waa caruur yaroo aada geyn karto maxaan ku dhahay iskuulkooda ka imaan kara, cunadooda fadhigooda ku cuni kara, ka shaqaysan karta, ma fahanti. marka dee haddii naagtu kaa mashquushana dee adii waxaa cuni lahayd dee kuusoo shaqeynaysaa, wax weyn ma aha. anyways qisadan waa ka xumay. waxaana leeyahay faarax waa faarax, soomaaliha aado, arab ha aado, soomaaliyahay wax xubsado, soomaaliyahay faarax waa faarax, ma fahantiin. ani faaraxyaasha waa dhigay naagaa dhahay ajaanib, ajaanib warkeeda ma jiro. ajaanibta ugu xun caruurta qaadanaysa. marka ajaanibi waxaa daa ka baxda aad nin waa nine u dulqaata, amii kale go-aan yeesha, fahad ama go-aan yeesha ama u dulqaata, labada wax u dhexeeya ma jiraan. waana ka xumay walaashan.